صاحب هذا بيجك كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توحن بالله بين التحنا عصب أو كسابسا وحلو يقانو هيدروبونيك فودر أو لمعناه علفك عقارن عرلا أن تلبيرو هيدروبونيك فودر. معناها هيدروبونيك فودر إريجا هيدروبونيك وإري جريجا أو كوبان laba qaybood oo kala ah haydaro oo macnaheedu yahay biyo iyo bonic oo macnaheedu yahay shaqo. waxa kale oo loo yaqaanaa aquaculture oo macnaheedu yahay beeridda biyaha. taariikhda hydroponic foodarka haddaan dib u milicsano farsamadan wuxuu aadanuhu isticmaali jiray kumanaan sano ka hor. tusaalayaasha ugu fog ee loo soo qaadan karo hydroponic foodarka waxaa ka mid ah beerihii lushay ee Baabil oo magaalo ku taalay dalka Ciraaq. waxaa isticmaalay faraacintii hore ee Masar. sidoo kale waxay isticmaali jiray Chinese-ka waxayna ku isticmaali jireen beerihii sabaynayay ee China. waxtarka hydroponic foodarka waa cunto fresh ah, cusub, nadiif ah oo joogto ah gu iyo jiilaal. waxaana ka buuxa nafaqooyinka xooluhu u baahan yihiin sida carbohydrate-ka, borotiinada, fitamiinada iyo enzyme-yada kala duwan ee nooluhu u baahan yahay. wuxuu u sahlan yahay dheefshiidka xoolaha. marka xayawaanka lagu quudiyo calafkan wuxuu u baahnaan doonaa tamar yar marka uu dheefshiidayo. taa macnaheedu waxaa tahay xooluhu markay cunaan cuntadaas si loo dheefshiido oo jirka uga faa'iideysto wuxuu u baahan yahay energy badan. laakiin calafkan cagaar xoolaha marka la siinayo energy badan uma baahna. muxuu ku fiican yahay calafkan cagaaran ama hydroponic foodarku muxuu ku fiican yahay? koow, qiimaha nafaqada ku jirta oo aada u sareeya. hydroponic foodarka waxaa ku jira nafaqo ka badan tan ku jirta calafyada kale sida cawska iyo miraha kala duwan ee xoolaha la siiyo. labo, waqtiga soo go'itaankiisa. hydroponic foodarku wuxuu ku soo go'aa 5 ilaa 8 maalmood halka calafyada kale ku soo go'aan 45 cisho ilaa 2 bilood. marka waad arkaysaa muddo aad u yar ayuu kuugu soo go'ayaa. calafkan cagaaran waxyaabuhu ku fiican yahay waxaa ka mid ah baahida biyaha oo yar. halkii kiilo oo calafkan ah waxaa ku filan 3 ilaa 4 litir oo biyo ah halka calafyada kale ay u baahan yihiin 70 ilaa 100 litir oo biyo ah. sidoo kale wuxuu ku fiican yahay sahlanaanta wax soo saar maalinle ah. waxaa suuragal ah in maalin walba la soo saaro xaddi go'an oo hydroponic foodar ah xataa xilliyada biyo yaraantu jirto. waxyaabaha ku fiican yahay waxaa ka mid ah looma baahna in la isticmaalo kiimiko iyo cayayaan dile. sababtoo ah waxaa kugu filan oo keliya adigoo isticmaala biyaha caadiga ah ee isticmaashid nolol maalmeedka. shaqaale yar iyo nooli la-aan. hydroponic foodarkan marka la sameynayo badanaa waxaa laga sameeyaa beerta xoolaha dhexdooda. waxaa ku filan qof ama labo, umana baahanaysid wax gaadiida ama transportation uma baahanaysid. casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. aad baad u mahadsantihiin. wuu noo socon doonaa insha allahu tacaala. maanta qaybta koowaad baa halkaa noogu eg. haddii aad wax ka faa'iiday ha ku bakayl inaad tidhaahdid subscribe iyo inaad la wadaagtid asxaabta kale. aad baad u mahadsantihiin. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.